xalfad ay ku qalin jabinayeen in ka badan 15 arday oo baratay quraanka kariimka ayaa maanta waxa lagu qabtay madrasatul al-aqsa ee xirada qaxootiga xagar dheer xalfadani ayaa waxa ka soo qayb galeen arday waalidiin marti sharaf iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ugu horeyn waxa lagu daahfuray ayadaha quraanka kariimka مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة sidoo kale ardayda waxyaabihii ay barteen su'aalo iyo jawaabo ah ay halkaas ku soo bandhigeen ما غاية علم التجويد غايته بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تلقي من حضرة النبوية الأفصحية وقيل غايته سون اللسان عن الخبر في كتاب الله تعالى. ما حكم الشارع في علم التجويد؟ التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المتكلفين. اليوم ختمت القرآن حفظا وعيبا وبيانا أودعت بقلبي آيات تسكنني روضا وجنانا تسكنني روضا وجنانا اليوم ختمت القرآن حفظا وعيبا وبيانا كيف حالك يا أختي؟ حالي طيب. تعالي نأخذ عبار لماذا تصير؟ تفضلي يا صديقتي. من هو سيدنا محمد؟ ورسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل. من أي قبيلة أبوه؟ وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة. dhanka kale marti sharaftii iyo waalidiinta ka soo qayb galeen munaasabada ayaa dareenkooda u cabireen sida tan meesha horta meel la faaruqi doon waaye meel laga sii joogi ma aho waa meel maartana lagu talagalay inaan Allah azza wa jalla ku barano oo ka saay qaadan saayid la qaadan maxay tahay watazawadu fa inna khayra zadi taqwa magar saayid la qaadan taas waay ina ilaahay azza wa jalla maartay la cabsado maartay wax amirtuuna farnaan maartay aan fartoonaano magaraysa oo meeshan aan ka saay qaadan marka waalidiinta khaasatan amaygu waxaan leeyahay dadaal baa suubiseen abaalkiina namada gudi karno Allah in dambi dhaafo الله إن دم دافع إن شاء الله تعالى ده ده إني كان البان فرق مارتي دتك لما نروح ولا جوان إسكولين حقوق إني كان دتك مارتي دين الإسلام إنك استاد الشيخ وايمان إنك استاد عالم واي دين الإسلام كهواي وهواي واسع والله برت مركي إني كان الزوجين رجيني مارتي كامر قاطع وترتيب توجه سما قفت الدمر تحال را إني مارتي أي زوج كذا كامر قاطع هذا أسكتك تقول ماشي أسكب جايرك أسكفوري نو bartaan waxa la jeceshiin maada diiniba inay bartaan waxa la jeceshiin ilmaha inay ugu sareeyaan maxaa u tarbiyeynaysaa biriinu isku anfaco aakhirinu jannada ku tagaaday hawtaadi Soomaalidu waxay tiraadaan naftigabe naf kalena ma kalkaalo adoo taadiiba dayacay tu qof kale goorma toosinaysaa cunugan waxa laga yaabaa 13 bisoo gaaray ilaahay inuu ka oofsado صح isaga waa la dadaalaysa waana laga rabaa waana waajib ku saaran waana lagu weydiin laftigiisa aakhiro laakiin taadi hadda mukallafka ahaydna ina ilowdid maaha Allah subhanahu wa ta'ala ana nama saarin waxaan qaadi karin diintu way fududahay waxaan la saarin waxaan qaadi karin lama saarin taada adoo diinta ku tarbiyaynayo kuwada oo quraankaaga akhrisanaya ayaa ilmahaagin u faa'iideynaysa aad bay noo qiiro geliyeen qaasatan gabdhaha gabar wax ma barata been waaye gabdhaha macallimada waad maqlayseen kelmadahay ku hadlaysay kuwa ka horeysay oo quraanka kariimka ku hadlay waad maqlayseen gabar hadaad wax barto waa dunidoo dhan adoo wax baray la mid tahay ragga kale ee dugsiyada yaa la geyn aad gabdhaha loo dadaalo
caruurtana hala daba socdo waalidiinta iyo macallimka ha isku xiraadeen canuga hadduu dhaxda ka baxo waxay noqonaysaa in maaragtay canugaas meel gacbo kala galo marka waxaan idinkula dardaarmayaa meeshan fasaahadeeda badan maanta waxaad barataan inaad beri ku camal fashaan ma aha micnaha ma dhamtaa hore usii sheegtay waxa marka in la baro waalidiinta intay idin baraan haddana 13 sano markaad gaartaan intaan telefoon qaadataan dabeedna hadhowti maartay aad jeega jarataan oo sirwaal idinka dhacay aad qaadataan ma waxaa la rabaa inaad maartay bulshada example u noqotaan juhdi idinku soo bixiya aad ka soo baxdaan ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo awalmarin aad u qiimo badan lagu guddoonsiiyey ardayda maanta ka qalin jebisay madrasatul al-aqsa iyagoona sidoo kale u soo bandhigan dareenkooda warbaahinta. Khalid Cali Maxamed oo ka mid ahaa ardayda qalin jebinaysay ee dafcadani waa dafcadii 10aad waxaan bartay quraanka kariimka iyo xadiisada iyo siirooyinka nabiga qiimaha farxad aad iyo aad u weyn celcelinaa markoowaad waalidiinteedii ila soo dadaaleen oo igu soo kobciyeen inaan wax barto iyo macallimiinteeda la dadaali jir wax bari jireen maanta faraxsan yahay farxad weyn oo la soo koobi karin anigoo Xamar Cali Maxamed leedaho iyo macallimiinteedii soo bareen quraanka oo aan ku jiro kooxda 10aad oo ka qalin jebisay quraanka madrasada lagu magacaabo madrasatul al-aqsa waa maanta dareenkii ugu weyn dunida iyo farxadeeda lama soo koobi karo si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay arday sidan oo kale ay ka qalin jebiso madrasatul al-aqsa ee xarada qaxootiga xagar dheer Xasan Kaafi telefishinka caalamiga ee badda Astona 4 TV xiriyaha qaxootiga ee Dadaab.